هذا يوردر بنكو جيني عيدي جراريدي xaflad si weyn loo soo agaasimay oo soo dhaweyn ah ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. xafladan ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay Sacda Cali Sahal oo ah gabar ganacsato ah isla markaana ka soo jeedo dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia. waxaa xafladda ka hadlay dad fara badan oo isugu jiro cuqaal, waxgarad, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sacda ayaa lagu amaanay in ay dowlad deegaanka ka hirgelisay goobo ganacsi sida hoteelka caanka ah ee Sahal kaasi oo ku yaala magaalada Jigjiga. waa gabar samir badan sidaad ogsoontihiin waa gabadh dhinacsan wax ka dayda waa qof tiraahda waa la guulaysan haddii aad maqli jirteen hooyooyinku ama dumarku waxba ma qabsan karaan Sacda caawa ku qusqaad gabadhan ganacsatada ah ayaa markeedii hore ka laabatay qurbaha si ay u maalgeliso dalkii ay ka soo jeeday. gudoomiyaha jaaliyadda dowlad deegaanka qaaradda waqooyi Ameerika Cabdinuur Xasan Abi iyo aqoonyahan Sheekh Mukhtaar Yuusuf ayaa waxay si wada jir ah baaq ugu direen xukuumadda dowlad deegaanka. aan coddeer ku sheegaynaa dowladuna in dadka qurba joogta ah ee deegaanka maal gashtay in naftooda iyo maalkooda iyo cirdigoodaba inay ilaaliyaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay una qaaliyay soo dhawow waxaan runtii dowladda iyo aan runtii ka codsanaynaa inay dhiirigeliso ganacsiyadayaasha sidoo kale dadka ganacsiga wadanka u tagaaya iyo kuwa wadanka hadda gudaha jooga sameynayaba in la dhiirigeliyo in la taageero in la garab istaago arintaas runtii fariin dheer baan cod dheer iyo cod gaaban baan ku gaarsiinaynaa taa micnaheedu ma aynan anaga dowladda aanu mucaarad ku nahay laakiin wixii fiican baan ku taageeraynaa wixii xunna baan ka soo horjeedinaynaa. Maxamed Sheekh Maxamuud Sandere oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee North America ayaa isna sidan yiri yiijan ogaadeen waasadeedii weeye madaxdeedii weeye biidnillah waxaan rajaynayaa investmentiga halkaa gashato kuwa ka sii waaweyn in aad geliso ood ku dhiirato ood ku socoto adeer soo dhawow aniguna welcome to Minnesota. dadka kale ee goobta ka hadlay waxaa ka mid ah Yusra Carab, Canab Ugaas, Sheekh Khaliif Cabdi Budul iyo siyaasi Xuseen Maxamed Deeq. hadda anigu markii ugu dambeysay aan Sacda arka waxay ahayd 2012 markay dhisaysay hotelkeeda. I think you do remember. marka waxaan ku rajaynayaa khayr waxaan ku leeyahay welcome to Minnesota once again. hadal badan haan ma buuxsho Sacda waa la idin baray waxay taayna waad ka buuxdaan oo qof cusub maanta la idin sheegayo ma aha walaasheen horumarka iyo guusha ay gaadhay waxaan rajaynaynaa inay sii wado in badan looga daydo dhammaanteen waxaan rajaynaynaa inaan wada garab istaagno xukuumadda laga wada eed sheeganayo maaragtay waa xukuumadeeni waxaan rajaynaynaa bal inay nidaamkeeda wax ka bedesho oo ay ummadeeda u soo jeedsato oo maaragtay ay nidaamkan maaragtay ay hadda ku socoto mid horumar lagu gaarayo ma aha mid ay adduunyada kula soconayso ma aha marka walaalkeen Mustafa Cagjar madaxweynaha qaaliga ah waxaan u sheegaynaa annaga hadana community-ga reer Minnesota waxaan jecelnahay wanaaga waxaan jecelnahay horumarka dadku waa dadkaagii kuwa xagga jooga iyo kuwa halkan jooga walaasheen Sacda waa shakhsiyaadka mudan hormuudkana u ah Somali State hablaha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed mudnaanta iyo tusaalaha uu noqonayo mudan in la garab istaago waxaynu ognahay hawlaha aynu dhagaheena ka maqlaynaa qaarkeena ay la kulmeen ayaduna caawa ay nooga sheekeynayso walaal soo dhawaad ku leenahay ku soo dhawow North America gaar ahaan Minneapolis oo xarunta taageerada ugu weyn laga bixiyo caawa joogta waxaa halkan kugu fadhiya dhammaan reer Minnesota dad kale oo ka yimid gobolada kale ee Mareykanka iyo waliba shakhsiyaad aan u aqaan oo ka yimid Canada si ay caawa kala qayb galaan farxadda iyo soo dhaweynta Sacda oo aanu annaga aad noo tahay xidigtii ama boqoradii Somali State. aqoonyahan Cabdirasaaq Daahir Budul ayaa ka sheekeeyay taariikhda ganacsi ee ay Sacda soo martay. Sacda markii ugu horeysay aan wada kulanno ama is aragna ma aha markii hotelka dhisaysay ayaan Jigjiga la joogay waxay ka samaysay hotel casri ah ganacsi weyn bay ka samaysay hoteladii ugu horeeyay meesha laga dhisay ayuu ahaa
shaqo aad u adag ayay qabatay way ku mahadsan tahay Cumar Aadan waxa uu ka mid yahay waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda dalka Kenya waxa uu ku dheeraaday aqoonta u leeyahay Sacda wali Kenya magaalada Mombasa ayaan train intaan saaray yaani train isla raacnay Mombasa geey badda Mombasa oo magaalada Mombasa magaalada xeebta adduunka meesha ugu qurux badan way laakiin qabadaha ka sii qurux badan aan filayaa يعني وليد دون ونظام انت جيبان هبينكي ان دومين كو عشيني صفي عن سو دبي way ka heshay waxay u tiray Mombasa inaan soo diro hotel ka dhisan raaw marka ana dheemay ma jigjigada si bad hotelada marka runtii fursad qaaliga ay tahay fursad zaciida way mar labaad hadan inaan magaalada Minneapolis aan ku soo dhaweeyo ugu dambeyntii waxa xafladda ka hadashay Sacda iyadoo sheegtay in hadafkeedu uu yahay sidii ay wax ugu qaban lahayd dadka ku nool deegaanka ay ka soo jeedo aniga sida la idin sheegay kolkii ugu horeysay noloshaydii waxaan ka bilaabay Norway waqti aad u dheer deganaa ilaa dugsi dhexe dugsi sare ilaa waxbarashadayda ugu sareysay meeshaas aan ka dhigtay socod iyo dhaqdhaqaaq badan oo aan ku tagay wadanka loo yaqaan Ogaadeen ya baahidii marka iyada ahayd ka jirtay baa waxay igu kaliftay anoon marnaba u fikiraynin business iyo lacag ka soo gashaa waxaan u fikiray inaan bal dadkayga hotel qurux badan oo ay dadka korka nooga imanaya ay ku nastaan ama ay jiifsadaan inaan ka sameeyo hotel wuxuu yahayna ma aqooninba abahay tukaamo lahaan jiray bakhaarad ninkii yaqaana isbitaal uu ka shaqeyn jiro qaybta caafimaadku ahaa marka hotel waligana wuxuu siira waxna ku lahayn laakiin si aan dadkayga iyo dalkayga aan wax ugu qabto yaa waxay igu kaliftay inaan hotel aan ka dhiso meesha magaalada madaxda Jigjiga taasoo ay qaadatay waqti dheer waad garanaysaan single mother baan ahaa kula sii ordaysa shaqooyin Yurub ka haystay hay'adahan madax u ahaa anoo shaqooyinka haysta baan haddana ciyaalka yar inta ii korayeen baan hotelka dhisayay laakiin ilaa xilligan la taagan yahay waxaan u taaganahay inaan hal habeen xidhin hal mar ma ayna dhicin inaan shaqaalihii meesha joogay aan kala yareeyo waligii hal maalin macnaha bishan kharash ma soo galin qof uma faydganay ama qof uma ana shaqadooga ma joojin waxa inta badan adag in la arko hooyo Soomaaliyeed oo horumar ka sameysay dhanka ganacsiga sida Sacda sanadii u dambeeyay ayaa waxa sare u sii kacay qurba joogta dib u maalgelinayso deegaanada ay ka soo jeedaan Faisal Jabati Xidig TV Minneapolis hada iyo war dheer baan ku geeyay ciidi jarare